Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Muuqaalkan waxaan kaga hadli rabaa talooyin ku saabsan cudurka adduunka qabsaday ee COVID-19 ama coronavirus. Muuqaalkii hore waxaan kaga soo hadlay cudurka coronavirus waxa uu yahay cudurka waxyaabaha sababay astaamihiisa iyo qalabka lagu baaro cudurka. Haddii aadan daawanin, soo daawo muuqaalkaas oo ka faa'iideyso. Linkiga waxaan kugu reebi doonaa xagga hoose ee description-ka. Muuqaalka marka waxaan xooga ku saari rabaa talooyin iyo ka jawaabid su'aal caan ah ee ku saabsan cudurka coronavirus. Habka gudbinta cudurka coronavirus. Habab badan ayaa la iskugu gudbiyaa cudurkani. Waxaa ka mid ah marka hababka la iskugu gudbiyo cudurkani in cudurka kugu soo gudbo si toos ah oo macnaheedu tahay inay ku soo gaaraan dhibcaha ka soo duulaya qofka qabay cudurka markuu qunfaco ama qofka markuu hindhiso inay dhibcaha afkiisa ka soo duulayaan ku soo gaaraan. Number 2 waxaa ka mid ah gudbin oo si toos ahayn. Gudbin oo si toos ahayn markaynu leenahay waxaan kaga jeednaa in aad taabatid sagxado ama alaabo wasakhaysan kadib aad taabatid sankaaga ama afkaada ama indhahaada. Tusaale ahaan, qof cudurka qabay ayaa imaaday, miis ayuu taabatay, adigina waa imaaday, halkaas ayaa taabsatay, kadib gacantaada ayaa la aaday sankaaga, afkaaga ama indhahaada. Cudurka si fudud ayuu kugu soo gudbayaa. Number 3, la xiriirid si toos ah dadka cudurka qabo. Inaad si toos ah kula xiriirtid dadka cudurka qabo. Calaamadaha lagu garto cudurka coronavirus waxaa ka mid ah qandho, inuu qofku isku arko xumad ama qandho aad u kulul, inuu qofka heerkulka jirka si normal ah waa 37 degree centigrade. Markii ka sarmarto heerkulka jirka 37, qofkaasi waxaan dhihi karnaa wuxuu qabaa qandho. Sidoo kale astaamaha cudurkani waxaa ka mid ah inuu qofka dareemo daal, waliba daal aad u badan. Number 3, astaamaha ama calaamadaha qofkan lagu arki karo waxaa ka mid ah inuu qofka dareemo qufac qalalan. Astaamahan 3 astaamad waa astaamaha caanka ah ee lagu arki karo qofka cudurka qabo. Dadka qaar waxaa jira marka astaamahan ka badan lahaa karo. Astaamahaas waxaa ka mid ah in dadka qaar ay dareemaan xanuun iyo garaac xagga xabadka ah, dhinaca waliba sanbabka ah. Sidoo kale dadka qaar waxay dareemi karaan sanka oo duufsan ama sanka oo buuxsamo. Sidoo kale dadka qaar waxay dareemi karaan cun xanuun. Dadka qaarna waxay dareemi karaan sidoo kale neefsashada oo ku adkaato. Marka qof walba wuxuu isweydiinayaa sida looga hortago cudurka coronavirus waa maxay? Cudurkani coronavirus waxaa looga hortagaa inaad gacmahaada si joogto ah aad ku dhaqdid biyo iyo saabuun. Number 2, cudurkan waxaa kaga hortagi kartaa inaad afka iyo sanka aad dabooshid markasta oo qunfacaysid ama aad hindhisaysid. Number 3, waa cudurkan kaga hortagaysaa inaad iska kululeysid ama aad diirisid cunto walba oo aad isticmaalaysid. Number 4, ka fogow la xiriirka tooska ah qof kasta oo leh astaamaha cudurrada neefsashada sida qunfaca iyo hindhisada. Number 5, inaad ka fogaatid meel walba oo bulshada ay ku badan tahay ay iskugu imaadaan sida meelaha kubadaha lagu ciyaaro iyo sidaas si la mid ah. Waxaa sidoo kale muhiim ah inaad ogaatid goorta gacmaha la dhaqaayo. Waxaan soo sheegnay in aad kaga hortagi kartid cudurkan inaad gacmaha iska dhaqdo. Haddaba xilliga ugu fiican ama ugu munaasibsan ee gacmaha la iska dhaqo waa xilliyada ugu wanaagsan ee gacmaha la iska dhaqo waxaa ka mid ah in aad iska dhaqdid gacmaha cuntada ka hor. Waa muhiim ah in aad iska dhaqdid gacmaha cuntada ka hor sababtoo ah gacmahaada oo wasakhaysan haddii aad cuntada ku cuntid waxay la mid tahay adigoo fayraska cunay. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad iska dhaqdid gacmaha ka hor iyo kadib inta aad cuntada sameynaysid. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad gacmaha iska dhaqdid ka hor ama kadib marka aad joogtid ama la joogtid qof bukaan ah. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad iska dhaqdid gacmaha marka aad qunfacdo ama aad hindhisto kadib. Sidoo kale waxaa muhiim ah inaad gacmaha iska dhaqdo marka aad carruurtaada aad ka bedeshid xafaayadda. Sidaas si la mid ah mar walba oo aad musqusha ka soo baxdid ama suuliga waxaa muhiim ah inaad gacmaha iska dhaqshid. Iyo mar kasta oo aad taabatid xayawaanka. Sidoo kale ugu dambeyn, mar kasta oo aad taabatid gudaafada waa muhiim inaad iska dhaqdid gacmahaada.
talooyin muhiim ah ayaa sidoo kale jiro marka aad dareentid neefsasho adag weliba tusaale ahaan waxaad dareentay neefsasho dhib badan waxaadna joogtaa waddan ka mid ah kuwa lagu sheegay cudurka coronavirus 2 toddobaad ee hore maxaa sameynaysaa marka waxa kugu haboon ee aad sameynaysid waa inaad xiratid maaskaro caafimaad ah number 1 inaad xiratid maaskaro caafimaad number 2 inaad u tagtid isbitaal ama inaad hore u tagtid isbitaalka kuugu dhow sababtoo ah inaad iska baartid cudurka waa muhiim si loo ogaado inaad cudurka qabtid ama inaadan qabin oo aad u qaadatid dawooyin aad ku anfici doona sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaatid aadaabta hindhisashada si loo yareeyo caabuqa inuu faafo waxaa muhiim ah inaad isticmaashid cleanis ama wax loo yaqaan softis marka aad qunfacayso ama aad hindhisayso haddii aadan haysanin softi waxaad isticmaali kartaa suxulkaaga adiga oo gacantaada soo laabayo marka aad isticmaashid softiga waxaa muhiim ah inaad si degdeg ah ugu tuurtid gudaafada sidoo kale waxaa muhiim ah markaad ku tuurtid gudaafada waa inaad gacmahaaga ku dhaqdid saabuun iyo biyo diiran waxaan rajaynayaa inay talooyinkan ku anfaceen la wadaag asxaabtaada sidii ay ugu faa'iidaystaan talooyinkan su'aalo iyo jawaabo ayaan idin reebi doonaa tusaale ahaan ma jiraa talaal looga hortago fayraska coronavirus ma laga yaabaa in fayraska coronavirus lagu kala qaado marka aad taabato lacagta ama kaararka coronavirus ma lagu qaadi karaa qaniinyada kaneecada su'aalahaas iyo jawaabahooda iyo kuwa kale oo badan akhriso kana faa'iidayso